سنترada labada aqal ee habeenii maalin u taagnaa sharciga duulista rayidka ah ka shaqeeyay runtii xildhibaan senator Naciima joogto oo hor fadhiso waxaan gelinay runtii dadaal aad u dheer oo aan haynay muddo ku dhow hal sano oo aan ka shaqeynay in sharcigii tan ansixinay madaxweynihii saxiixay faafintii rasmiga la geeyay waa isku wada hambalyeynayna waa guul u soo hoyatay Soomaaliya lasoo wareegida hawada Soomaaliya oo ilaa 93 laga maamulayay dibadda runtii waxaa loo galay juhdi fara badan hadii ahayd xukuumadihii dalka soo maray hore iyo xukuumadda joogta waxaa u dhintay dad dhaxalgal u ahaa dalkeena oo ka mid ahaa Abuukar Cadaali Allah u naxariisto oo ay tahay inaan la hilmaamin runtii aan markasta oo soo istaagan aan xuso rabana ardayda Soomaaliyeed inta joogta inay ogaadaan jidadkii ka horreeyay raggii soo maray oo ku soo rafaaday hambalyada kadib waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto garoomada dalka wasiiradii iga horreeyay waxaan ku faraxsanahay inay inta joogaan wasiirka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle dhibaatadii ka dhacday Bardaale iyo Beledweyne runtii wasiirka iyo tiimkiisa waxay qabteen howl fara badan aniga kii Beledweyne aan tagay oo soo arkay dhibka ka dhacay waxaa la rabaa mudan wasiir maanta waxaan maleynaa hadalkeena dhowr u badnaana sharciga waa dhamaystirnay maareeyihii iyo hay'adii dhamaystirkeedii waa sameynay waxaa laga rabaa airdromiskii si loo hagaajin lahaa oo garoomadii ah garoonka magaalada Beledweyne waa garoonka ugu dadka badan ugu populationka badan ugu ma aragtay isha diyaaradaha ka baxa dalka ay ugu badan yihiin ani iyo adiga iyo maareeyahaagana waa soo aragnay runtii dhibaatada maalintaas meeshaas ka dhacday alxamdulillah naf ku bixin oo naf ku dhimanin laakiin waxay gaarsiisay damage ama dhibaato aad u weyn taasoo oo ilaa maanta hakisay duulimaadyadii diyaaradaha aysan aadi karin waxaa foolxumo ugu wada ah annaka dhammaanteen annagoo wada matalayna shacabka Soomaaliyeed in garoomadii dalkeena laga waayay dabdamiska yaalana hay'adihii amniga ilaalinayay ay dhahaan wahameysan yahay meelaa la dhigay marka mudane wasiir adoona kaashanaysid anagoo garabkaaga taagan oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan rabnaa inaad xooga saartid sidii loo heli lahaa loona dhamaystiri lahaa agabyada ay u baahan yihiin airportada dalka oo dhan maadaama shacabka Soomaaliyeed uu ka xiran yahay jidadkii oo aysan mari karin halka jid ee u furan ee ku duulaan ay tahay diyaaradaha ay tahay waxaan rabaa inaan ka bilowdo kow anoo ku hadlaayo runtii magaca reer Hiiraan magaca reer Beledweyne gobolka Hiiraan wuu dulman yahay mudan wasiir wuu dulman yahay hadday tahay dhinac walba maadaama maanta aan u tababartay oo aan hadda dhagtar iigu sheegay ilaa 3 ama 4 arday ay ka soo qalin jibinayaan Hirshabeelle oo dhan ay tahay way ugu yar tahay garoonka Beledweyne mudan wasiir 2 jeer aniga adiga tagnay waxa ognahay anoo guddiga gaadiidka ee golaha shacabka ka tirsan inuu loo haayo lacag fara badan laakiin ugu baahan tahay wixii dhaqaajin lahaa wasiirka gaadiidka uu imaqla oo Hirshabeelle gudoomiyaheenii oo golaha wakiilada oo Hirshabeelle ugu fadhiya marka waxaa arki kartaa sida aan u daleynayno oo uga soo qayb galnay in ma aragtay ay mudnaanta noo tahay in garoomadanadii la habeeyo dib habeena lagu sameeyo waxaan nooga baahan tahay waa ku garab taaganahay waxaan rabnaa hadhow markaa hadlaysa ballanqaad dhab ah inaan inta kaa helno goorta ay hagaajinaysa habeenaysa ay goorta labadii diyaaradood oo ku dhacday dalka runtii oo midna accident ahayd midna shil kale ka gashayna baaritaankeedii aan wadidna waa ogahay xogta meesha marayso iyo sida ay juhdi iyo dadaal badan u gelinaysiin ilaahay idin fududeeyo dadka qalabka leh waxaan rabnaa inaan maxkamadda soo saaro tii Bardaale waxaa ku dhintay dad Soomaaliyeed waxaa ku dhintay aqoon-yahano Soomaaliyeed waxaa ku dhintay wiilal hooyo dhashay aabba dhalay ilmo dhaleen oo la rabo iyada laftirkooda inaan iloobin dadka ku dhintay Bardaale runtii oo rabnaa dhibaatadii Bardaale ka dhacday maadaama anaga aan mas'uul ka nahay oo baarlamaankii aan nahay in diyaaradaas wixii ka dambeeyay waajibaadkii sharciga ahayd la marsiyo cadaaladda ay helaan wiilasha Soomaaliyeed oo meeshaas ku dhintay ugu dambeyn mudane wasiir mudane maareeyaha waxaan rabaa inaan u duceyno ilaahay ha kula qaado hawsha culus ee aad hayso ee lagu igmaday inuu ilaahay kula qaado golaha baarlamaanada oo maamul goboleedyada iyo wasaaradaha maamul
goboleedyadana waxaan rabaa inaan wasiirka si fiican ula shaqaysiin haddii aadan la shaqeynin runtii wax nagu dhici doonta dibudhac weyn oo ku dhici doonta maamul goboleedyada iyo shacabka aan mataleyn inaan si saxa oo dhab ah wada shaqeeyo sharciga aan ansixinayna waxaan rajaynaynaa in la fuliyo laguna dhaqmo sharci la sameeyo oo la saxiixay macno ma sameeyna sharciga waa inuu dadka kala hagaa kala reebaa nin kastana positionkiisii uu yeeshaa marka sharcigiina in lagu wada shaqeeyo maamul goboleedyadana mar labaad waxaan ka codsanaa wasiirada joogay wasiirada laga maqanba inaa si dhow oo run ah oo dhab ah idinkoo ka naxayseen shacabka aan matalaysin idinkoo ka naxayseen meesha ha ka imaateen inaad la shaqaysaan wasiirka gaadiidka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa idinkaga mahad celinaya mar labaad waxaan leeyahay wiilasheeda iyo gabdhaha maanta qalin jebinayana hambaliyo hambaliyo hambaliyo